3 Maarso labo eber labo lix Dayaxu wuxuu si buuxda u geli doonaa hooska dhulka taasoo keeni doonta dhacdo loo yaqaan total lunar eclipse ama blood moon Dayaxa dhiigga. Inta lagu jiro dhacdadan Dayaxu wuxuu u muuqan doonaa mid guduudan oo qoto dheer taasoo ah sababta loogu yeero blood moon. Waa aragti cajiib ah oo aan la ilaawi doonin. Meelaha ugu wanaagsan ee lagu daawan karo dhacdadan waxaa ka mid ah Australia, gobolka Basifiga iyo galbeedka waqooyiga Amerika. Haddii aad ku sugan tahay Hindiya, waxaad daawan kartaa toos online ama adigoo adeegsanaya barnaamijyada xiddigiska. Waxaa fiican in la ogaado in daawashadu tahay mid gebi ahaanba ammaan ah, mana jirto baahi loo qabo muraayadaha gaarka ah sida kuwa loo isticmaalo qoraxda. Sababta Dayaxu u guduudo ayaa ah in dhulku uu dhex galo qoraxda iyo Dayaxa, taasoo ka hor istaagta iftiinka qoraxda inuu si toos ah u gaaro Dayaxa. Iftiinka kaliya ee gaaraya Dayaxa waa mid ka gudba jawiga dhulka, kaasoo iftiinka u beddela mid guduudan oo oranji ah. Khubaradu waxay doortaan meelaha ugu fiican ee lagu daawan karo iyadoo la eegayo hogta daruuraha iyo wasakhowga iftiinka ee taariikhiga ah si loo helo meelaha cirka uu badanaa ka nadiifsan yahay. 5 meelood ee ugu wanaagsan ee lagu daawan karo blood moon waa Grand Canyon National Park, USA, Horsetot Mountain Open Space, USA, Akarola Wilderness Sanctuary, Australia, Warrumbule Dark Ski Park, Australia, Saguaro National Park, USA. Hindiya gudaheeda Dayaxu ma muujin karo dhacdada oo dhan, laakiin waxaad raari kartaa tooska ama barnaamijyada xiddigiska. Muraayadaha indhaha binoculars ayaa ka caawin kara inaad aragto faahfaahin dheeraad ah. Dhacdadan total lunar eclipse waa mid dhif ah oo aan mar kale dhici doonin ilaa dabayaaqada sanadka 2028. Waxaa lagu talinayaa inaad hesho meel wanaagsan oo aad ku raaxaysato mid ka mid ah dhacdooyinka cirka ee ugu quruxda badan 10 sano ee soo socda.